bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa walaaca reer yurub ee ku aadan kobcinta yuraniyomka iiraan. sidoo kale barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa daalibaan oo ballanqaaday inay dhisi doonaan dowlad ay ku jiraan haween iyo inay xoojin doonaan xiriirka caalamiga ah. ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Faransiiska, Jarmalka iyo Britain ayaa walaac qoto dheer ah ka muujiyey warbixin ku saabsan in Iiraan ay dardargelisay heerka kobcinta yuraniyomka si ay ugu dhowaato heerka loo baahan yahay hubka, iyagoo sheegay in tani ay ka dhigan tahay xadgudub halis ah. iyadoo reer galbeedka Iiraan ay ka fikirayaan inay dib u bilaabaan wadahadalladii dib loogu soo nooleynayay heshiiskii nukliyeerka, ayaa wakaaladda tamarta caalamiga ah ee qaramada midoobay waxay ku sheegtay warbixinteeda in Iiraan ay dardargelisay kobcinta yuraniyomka. bayaan wada jir ah, saddexda waddan waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin warbixinnada wakaaladda tamarta caalamiga ah, iyagoo ku nuuxnuuxsaday in Iiraan ay markii ugu horreysay soo saartay awoodda yuraniyomka 20%, haddana waxay kor u qaaday awoodda yuraniyomka ilaa 60%. waxay intaasi ku dareen in labadan tillaabo ay lama huraan u yihiin samaynta hubka nukliyeerka iyo birta yuraniyomka loo adeegsan karo samaynta bam nukliyar. laakiin Iiraan ayaa sheegtay in hadafkeedu uu yahay mid nabadeed, islamarkaasna ay doonayso inay u adeegsato shidaal soo saarista. bayaankii wadajirka ah ee wasiiradda arrimaha dibadda ee saddexda dal oo looga dhawaaqay Jarmalka ayaa lagu sheegay in Iiraan ay tahay inay si degdeg ah u joojiso xadgudubka qorshaha guud ee waxqabadka heshiiska nukliyeerka. waxaan ku boorinaynaa Iiraan inay ku soo laabato wadaxaajoodka Vienna sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo la doonaya in la soo gebagabeeyo wadaxaajoodka. waxaan marar badan ku celcelinay in wakhtigu uu yahay gabaabsi, ayaa lagu yidhi bayaankan. dhanka kale Iiraan, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Saciid Khatiibzaadah wuxuu ku celiyey in barnaamijkooda nukliyeerka uu yahay mid nabadoon oo aan lahayn ujeedooyin militari. dhammaan barnaamijyada nukliyeerka iyo ficilada jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan waxay si buuxda u hoggaansamayaan heshiiskii nukliyeerka iyo waajibaadka Iiraan ee heshiis dhowridda. barnaamijyadana waxaa lagu fuliyey kormeerka wakaaladda tamarta atoomiga caalamiga ah iyo ogeysiis hore, ayuu yidhi Khatiibzaadah. sarkaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa Daalibaan ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan kulamo wadatashi ah oo u dhexeeya madaxda xarakada iyo saraakiil ka tirsan xukuumaddii hore si loo dhisa xukuumad cusub, halka xiriirada caalamiga ah ay sii joogteen doonaan. sarkaalka ayaa caddeeyey in xarakadu ay soo bandhigi doonto qaar ka mid ah xukuumaddii hore inay xilal ka qabtaan dowladda cusub, taasoo uu sheegay inay haweenku door ku yeelan doonaan. madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai iyo madaxa golaha dib heshiisiinta Cabdulaahi Cabdullah ayaa ka hadlay qabanqaabada xil wareejinta awoodda iyo horumarka xaaladda dalka. kulankan ayaa yimid kadib markii Anas Xaqaani oo ah sarkaal ka tirsan Daalibaan ahna hogaamiyaha caanka ka ah shabakadda Xaqaani uu la kulmay madaxweynihii hore Xamiid Karzai iyo Cabdulaahi Cabdullah. dhanka kale, afhayeenka xafiiska Daalibaan Suhayl Shahiin ayaa sheegay waraysi uu siiyey shabakadda telefishinka caalamiga ah ee dowladda China inuu u socdo wadahadallo lagu soo dhisayo dowlad ay ku jiraan dhammaan firqooyinka Afghanistan. wuxuu intaasi ku daray inay suurtagal tahay in laga wada hadlo dowladda Afghanistan oo cidna aanan ka maqnayn. Shahiin wuxuu carabka ku adkeeyey in Shiinuhu uu gacan ka geysan karo dadaalada horumarineed ee Afghanistan ee mustaqbalka. dhaqdhaqaaqa Daalibaan ayaa ugu baaqay imaamyada masaajida in ay dadka ku booriyaan midnimada salaada Jimcaha ee ugu horeysa kadib markii ay bilaabmeen mudaharaadyo ka dhan ah xarakada lagu faafiyey magaalooyin badan oo ay ku jirto caasimadda Kaabuul.